soo dhawaada assalaamu calaykum waa ka xumahay waan soo galay glitch baa dhacay somehow waa uu iska kay jaray aad baan idin salaamaya soo dhawaada war degdeg ah mar dhow live baan soo galay anigoo xog raadisa xog kama dambaysa ayaan idin hayaa soo dhawaada sidaad u dhantihiin dabcan siina share gareeya aad baan idin salaamahayaa xog degdeg ah ragga waa ku salaamayaa soo dhawaada assalaamu calaykum xoogaa markaad is soo gaartaan baan breaking news warkii kama dambaysta oo run ah waxyar ka hore baan soo galay live anigoo qabay su-aasha ah aaway cabdikariin ma la dhiibay mise muqdisho joogaa su-aashii aan idin weydiiyey ayaa taas ahayd warcad oo degdeg ah ayaan markaa idiin hayaa waa mahadsan yihiin mas-uuliyiinta ila soo xiriirtay ila wadaagtay xogta aad iyo aad baan uga mahad celinahayaa soo dhawaada salaan aad iyo aad u qiimo badan soo dhawaada akhyaarta waa idin salaamahayaa saaxiib daar calo soo waan arkahaya uu gaa kolley dadku waay buu galay dabcan waa iska xog raadis buu ahaa marka soo dhawaada dhammaantiin aad baan idin wada salaamahayaa soo dhawaada xoogaa isin soo gaara dad badan baa iga go-ay life baan soo galay wuu iga go-ay marka anaan weli hadalkii gudbin sii sheer gareeya isgaarsiiya xoogaa dadku markay la soo ekaadaan baan isku dayahayaa inaan xogta rasmiga idinla wadaago soo dhawaada waan idin hayaa war degdeg aan idin hayaa kama dambays ah idinla wadaagaya soo dhawaada dhammaantiin soo dhawaada aad baan idin salaamahayaa soo dhawaada cabdinuur cali waa ku salaamahaya in adeer soo dhawaada igana sidoo kale maxamed guuleed soomaalidu waa masugta qof waliba wuxuu leeyahay soo daa warka sii daadi baasha waa idin siinahayaa warka insha allah waxyarisa soo gaara akhyaar badan baa iga go'day xoogaa soo aruura markaas siina sheer gareeya fadlan xoogaa dadka hadduu intaan ka bato waa idinla wadaagahayaa warka waayo kuma soo noqon doono life dambe marka isgaarsiiya fadlan sii sheer gareeya asxaabta kalena si ay xogta rasmiga ah oo kama dambaysta aanu ula wadaagno soo dhawaada dhammaantiin aad baan idin salaamahayaa soo dhawaada aad baan idin salaamahayaa igraan wacalaykum assalam walaal soo dhawow jaamac dhurwaa soo dhawow sidoo kale shamse cabdi khaliif soo dhawow baan ku leeyahay jacfar cabdullaahi soo dhawow cabdicasiis dhubad aad iyo aad daahir juquraafi cali saaxiib soo dhawow aad baan kuu salaamahayaa xabiib cumar waa ku salaamahayaa soo dhawow adigana dhammaantiin soo dhawaada cabdinuur cali soo dhawaada walaalayaal cawka colaad junior aad iyo aad waa bilaabanaya waxyar kadib insha allah sii sheer gareeya shaqaan leeyahay marka hurfa guutaale walaalkii qaali ah aad iyo aad soo dhawow sii sheer gareeya fadlan aad baan idin salaamahayaa mister hurfe soo dhawow aad baan idin salaamahayaa cabdinajiib cabdullaahi wacalaykum assalaam soo dhawow miskii cali base ducaale soo dhawow aad baan kuu salaamahayaa siraaji sida oo kale mister daahir calasow soo dhawow adigana waa ku salaamahayaa soo dhawaada dhammaantiin aad iyo aad salaan aad iyo aad u qiimo badan waan bilaabanayaa bismillaah awalan ba waa idin salaamahayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan waa ogahay dadku aad bay warkaan u xiiseynahayeen oo u sugahayeen waqti yar ka hor baan soo galay live anigoo raadinahayo xogta halka uu ku dambeeyey walaalkeen cabdikariin sheekh muuse taariikhdiisa waxyar haddaan ka galaa cabdikariin xogta aan ka hayo wuxuu ahaa mid ka mid ah
hormuudka ama ragga indhaha u ah ururka xoreynta Soomaali galbeed shakhsi wuxuu ahaa aad iyo aad jabhadaas ay ugu weyn tahay buu ahaa shakhsi wuxuu ahaa Etoobiyaanka iyo saaxiibadooda ay aad iyo aad uga baqaan shakhsi meesha uu maro la yiraahdo halkaan uu maray diyaarado lagu daadiyo magaciisa la yiraahdo ninkooda qaaba carradan ku soo jiro ayuu ahaa shakhsi ay markaa juhdi badan geliyeen ama dilkiisa ama qabashadiisa ayuu ahaa xogta aanu helayno nasiib darro asbuucii la soo dhaafay ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo qaybta maamulka maxaa la yiraahdaa galmudug ayaa gacanta u galay qof ahaan waxaan ka mid ah dadkii juhdiga badan ku bixiyay oo ilaa iyo madaxda ugu sarreyso la xiriiray qad kula xiriiray si ninkaas aan gacanta loogu gelin cadowga nasiib wanaag waa ku guulaysanay in laga qaado Gaalkacyo markaana gacanta loo geliyo oo la geeyo magaalada Muqdisho xaruntii xukuumadda dhexe ee federaalka dalka Soomaaliya tegitaankii halkaa uu tegay aad bay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ugu faraxday qalbigooda ugu degay maadaama waxaan ognahay maamul goboleedyadii hore sida caadada ahaan jirtay inay wareejiyaan oo ay gudbiyaan shakhsiga Etoobiyaanku ay soo weydiiyaan waxaan idin xasuusinayaa shakhsiyaad ka mid ah ururkaas hadda ka hor Somaliland baa qayb ka mid ah gudbisay qaybna Puntland baa gudbisay waxaanu arkaynay shakhsiyaadkii la gudbiyo noocaas ahaa xilal bay ka hayaan maanta ismaamulka Soomaalida halka ayayba madax ka yihiin ayagoo madaxdii Soomaalida ku soo dhaweynaya meesha ragii gudbiyay ayaanu aragnay qaybo ka mid ah wax waliba oo dhaco waxa ku dhacan qadarta Ilaahay marka maamul goboleedyada way gudbin jireen dadka u dagaalama xornimo doonka Soomaali galbeed waa la gudbin jiray sababta markaanu ninkan ahmiyadda gaarka u siinay wuxuu ahaa shakhsi runtii aad iyo aad ugu muhiim ahaa dhaqdhaqaaqaas xornimo doonka magac ku leh ummadda Soomaaliyeed dadkuna ay runtii aad iyo aad wax badan ka filayeen buu ahaa cadowguna ay aad iyo aad ugu taami jireen oo u raadin jireen ayuu ahaa sidaa darteed ayaa keentay inaan juhdi badan kulli anigu qof ahaan runtii aan geliyo waan isku dayo ninkaas inuuna gacanta u gelin maxaa la yiraahdaa Etoobiyaanka siday doonto ha noqoto qof ahaan waxaan mahad gaar ah iyo mid guud u naqahayaa maamulka galmudug oo ku guuleystay ayagu inay isdhaafiyaan wixii ama eed ka imaan lahaa ama dhagxumo ka imaan lahayd waxaan leeyahay hambaliyo inkastoo ayagana aan haynaa cadaymihii ay gudbiyeen wada hadalla ay kula jireen in dhul ay maxaa la yiraahdaa doonahayeen hore ay ciidamada liu police uga saareen deegaankaas dadka degan qayb ka mid ah ay doonayeen dib in loogu celiyo haddii dhulkaas ninkana ay ahayd inay wareejiyaan oo negotiationkeeda iyo wada hadalkeeda uu socday xogaha aan hayno qoraaladooda aan soo bandhigi doonay ka mid tahay si walba ha ahaatee galmudug waxay ku guulaysatay inay maaragtay ninkaas isagoo bad qabo ku sinto xukuumadda dhexe ee Soomaaliya isagoo bad qaba inay ku sinto ilaa iyo labadii maalin la soo dhaafay website-yada meel walba waxaa isqabsaday ninka in la dhiibay xukuumadda wax warcad oo ay ka bixisay ma jirin arrintaas waxay dhalisay isdabamar walaac fara badan hadal badan iyo dadka Soomaalida oo qalqal dhexdooda ku abuurmo yiraahdo war dawladda dhexe ninka mar hadduu gacantooda galay oo uu gaaray taana waxaa noo xaqiijinaysa Twitterka uu soo dhigay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo uu bartiisa asagu soo dhigay Twitterka kuwa hore ma geyn lahayn haddaan ma soo dooni lahayn oo ma keeni lahayn haddii aan kuwa cusub geynahayo arrintaas waxay kor u dhigtay moralka dadka Soomaaliyeed oo markaa runtii wax weyn filahayay ayay kor u dhigtay live maanta markii aan soo galay anigoo xog raadis ah waxaan xaq u leeyahay muwaadin Soomaali ayaan ahay inaan ogaado dalkayga waxa ka socdo xog baan raadiyay haddaba waxay la soo xiriiray mas'uul ka mid ah xukuumadda iyo waliba shakhsiyaad u dhadhow xaqiiqda ayaa ila soo xiriiray dabcan mas'uulkaas magaciisa ma sheegi doono laakiin warkan idin sheegaya ayaa war argagax iyo naxdin ah kaas oo xukuumadda inay gudbisay haddana uu ku sugan yahay jigjigo ninka la yiraahdo maxaa la yiraahdaa shalayto wuxuu joogay goday buu ka sii gudbay xalana maantana wuxuu joogaa caaw wuxuu u hoyday Cabdikariin wuxuu u hoyday magaalada jigjigo maxaan ku tilmaami karnaa marka hadday xukuumadda sidaas samaysay waxaa laga yaabaa
in ay macnaha is yiraahdeen intaan waxaan bal idinku soo gaarin isa sii dhaafiya laakiin dabcan waa la ogaadaa in isagoo bad qaba oo xamar yimid eedeeda iyo ceebteeda iyo dhalisheeda iyo foolxumeeda dusha waxaan u saaraynaa mas'uuliyiinta ummadda Soomaaliyeed oo hamigii aanu ka qabnay iyo halkii aanu ku taamaynay ka hoos dhacday waxaa qalbi jab ah halkan aan ka cadaynayaa inay tahay tiiraanyo u soo hooyatay ummadda Soomaaliyeed xukuumaddu inay ku fududaatay ay tahay xukuumad fashilan aadna u fudud isdhaafinta la isdhaafiyey walaalkaas oo Itoobiya loo gacan geliyey ma ahan mid aan filayna ma ahayn waa mid qalbiga ummadda Soomaaliyeed guud ahaan wax u dhimayso waa mid mucaaradka iyo dadka diidan qarannimada Soomaaliyeed soo ifatay lidku ah raaga waxaa tiri walaal warkaasi waa war isburinaya war cad ma ahan xukuumadda xubnaha ugu sarsareeyay qayb ka mid ahaan la hadlay right now qadka intii aan ka baxay live ka balse iga codsaday inaan sheegin magacyadooda toos ila soo xiriiray marka warka dad hayso halkaas soo dhig ina tusi ninka wadaga ahaa oo halkaas joogo arrintaas waa arrinta cad weey arrintaan uu sheegayna ummadda Soomaaliyeed waxna ka qarin mayno hadday xukuumaddu ka qarinayso annagu ka qarin mayno annagu xukuumad manihin shacab baan nahay in la qanciyana xaq baan u leenahay warka aan la wadaagayna marka shacabka Soomaaliyeed waxa weeye Cabdikariin inuu ka baxay gacanta Soomaaliya Itoobiyana gacanta ugu jiro halkan qof ahaan waxaan ka dirahayaa baaq waxaan u dirahayaa inay ilay waxaan leeyahay Cabdiyow maalin waliba ragga ummadda Soomaaliyeed inkastoo aan kaaga mahadnaqahayo kuwii hore loo soo gudbiyay qaybta maanta ay ka mid yihiin xukuumaddaada Cabdikariin waa nin Soomaali ah waa nin muwaadin ah waa nin jecel ummadda Soomaaliyeed inay horumar gaarto deegaanka iyo dadka uu ka dhashayna jecel inay wax noqdaan gumaysigana ka hoos baxaan ayuu ahaa haloo naxariisto yaan la dhibaataynin si xitaa adiga laftiga mucaarad baad leedahay waad ogtahay inaad meesha madax ka noqotaad u baahan tahay waxaan ka codsanaynaa ninkaas isagoo mas'uul ama xukuumadda guud ha ahaato ama kuwa gaar haddii aad qof raxmad inaad ku egto Cabdikariin deegaankiisa iyo dadkiisa inaan aragno aad bay noo farax gelinaysaa adiga laftigaada dadka kaaja inay ku soo dhawaadaan kugu boorinahayaa fadlan siya klibka saxaab badan jigjiga waxaan joogay 16 baan joogay 3 bilood baan muddo dheer baan joogay asxaab badan baan ku leeyahay golaha wasiirada qayb ka mid ahaan saaxiibo ahayn waxaan codsanayaa Cabdikariin in loo gargaaro gacan raxmad leh in lagu qabto si aad idinka laftigiin dagaalka leedan kugula jiro uu noqdo mid ama soo afjarmo ama wajigiisa hadda aad ku jirtaan uu ahaado mid ka fudud oo la isu naxariisto waxaad ogaataan haddii aad dishaan dabcan kuwii dhimanayo qayb ka mid ah noqonayaa haddii aad xirtaan dabcan kuwii la xirahay qayb ka mid ah ayuu noqonayaa taasina waxay idin cadaynaysaa halgankaas inuu jiri doono inta ummadda Soomaaliyeed gabar ka mid ah ay nooshahay laakiin mar waliba naxariista in la isku soo dabaalo Soomaalinimada in la raadiyo taa ayaa macaan ah maalin waliba shakhsi in la dilo ama la xiro ama la jir dilo wax macno ay sameynaysa ma jirto waxa macnaha sameynaya waxa ay tahay oo kaliya in la isu naxariisto weey xukun baad haysataa Cabdi xukunkaada hadda rabto inuu ku sii jiro ha laga arko naxariista laga arko u gargaar dadkaada hogaamiye Soomaaliyeed baad ama qaldano ama saxnow hogaamiye Soomaaliyeed baad xasuusina xukuumadda aad hoos tagtay federaalka Itoobiya
inay burburto inay qarka u saaran tahay dhalinyarada liyu booliska oo ciidanka ah waxaan ku farahayaa walaalayaal meel lagu dambayn ilaahay baa garanahayo af iyo xaas baad ku dhex jirtaan dhan waliba cadow baa idinkaga hareeraysan oromada aad deriska tihiin baa waddooyinka idinka xirto xogteeda aad haysaan halaynina dadkiina u gargaara qoriga waxaad u wadataan ha noqdo dadkiina inaad cadowga uga dhicisaan ha noqonina eeyo ay axmaarada isticmaasho oo kullaysa dadkeeda walaalayaal ha noqonina waa jiirkiinnii waa walaalihiin laga soo bilaabo 1413 ilaa iyo maanta dhulka Soomaali galbeed hooyo Soomaaliyeed baa ku gablamaysay u istaaga dadkiina ciidamada liyu booliska ayaan farahayaa dhalinyarada wanaagsan oo wanaag soo arkay macaan ku arkay lahaa ku hilmaamay shacabkiina Soomaaliya Itoobiya waa burburaysaa shaki kama taagno yaan la laynin dadka yaan cadow gacmaha looga xirxirin dadka aad ka dhalateen iyo deegaankiina heel u noqda waad ogtihiin 77 ummadda Soomaaliyeed maanta waxay dawlad la'aan la noqotay raadintii iyo xoreyntiina ayay ahayd maanta inaad u istaagtaan dadkiina oo aad badbaadisaan waa waajib idin saaran weey cadow baa idinku hareeraysan iyo xaas afkiis dalqadiisaad ku dhex jirtaan Itoobiya waa burburaysaa burburka ay burburto marka inaad kaga faa'iideysataan dadkiina inaad arursataan hubka aad haysataan usan gacantiina ka bixin aadan dadkiina ku laynin ayaan idinka codsanayaa dhammaan ciidamada Soomaaliyeed ee qalabka sida ee liyu boolis iyo deegaanka dhulka Soomaalida Itoobiya gacanta ku hayo isku dayo xoog leh inaad heshaan isku dayo inaad dadkiina iyo dalkiina ku badbaadisaan shaki kama taagna Itoobiya inay burburayso reer galbeedku waa ka hadleen Mareykanka aan hadda joogo waxay ku cadeeyeen dadkooda inay ka soo baxaan xogo badan baan idin soo dhigayaa halkaas ifafaalaha ay ku burburayso iyo wadada ay ku socoto wada foolxun inay tahay Djibouti iyo Kenya labadaba hadda waxa laga dhisayaa xiriir qaxooti xiriir abid ugu weynaayo qaxooti ah oo la og yahay burburka Itoobiya dadkeeda sidii loogu badbaadin lahaa qaxootiga ah maamulka jira gacantu ka baxaya sidaa darteed maamulka Soomaalida waxaan ku dhiirinayaa inta ay hub haystaan ka badan inay isku dayaan inay arursadaan iskuna difaacaan dadkooda inay ku difaacaan oo ka badbaadsadaan cadowga taas ayaan maxaa la yiraahdaa Cabdi Maxamed Cumarna ku dhiirigelinayaa golihiisa wasiirada ku dhiirigelinayaa dhalinyarada liyu boolista waxaan ku dhiirigelinayaa walaalayaal u gargaara dadkiina billaahi alayk halaynina dadkiina magacyadan aad bixiseen ubba iyo balaayo aad bixiseen waa walaalihiin waa dad Soomaali ah waa tira idinka jarmaysa weey wax macno ay samaynayso ma jirto wax macno ay samaynayso ma jirto Soomaalida waxa ku maamaadaa jiridkii laahay ee jirida kama qoslo hala dilina axmaar ortodogis ah oo Ilaahay iyo rasuulkiisa aqoon gaal ah cadaabka markuu inta uu nool yahay moog ha u soo raacino hala dilina walaalihiin waa iga codsi waa iga islaamnimo waa iga Soomaali waa iga baaq taa ayaan idinku dhiirigelinayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa very emotional baan noqday xaaladayda maanta meel aan ku sugnahay garan maayo guul baan idin rajaynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan horumar baan idin rajaynayaa adayg aad ka qaadaan baan idin rajaynayaa hungowga qarankiina aad ku hungowdeen ka raali ahaada waa dawladda aan islahayn waa ugu wanaagsan tahay wixii dawlad dhashay waa dawladda aan u sacabtumaynay waa dawladda aanu ka filaynay inta ay ka badan waa dawladda aanu dadaalka ka aad iyo booshin hal raadiyo dhihi mahayo tan aan ridno oo aan maxaa la yiraahdaa ka hortagna dhihi mahayo ayada laftigeeda aan saxno wixii ka qaldamay aan isku dayno inaan la saxno aanu garab istaagno xadiiskii rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam oo walaalka haduu gardaran yahay qaladka ugu hiili hadii laga qaldan yahayna u hiili aan sameeyno nimanka dadaal baa ka muuqday simbir raxashana dabcan waa dhacdaa simbir raxashane dabcan waa dhacdaa waa rikoorkii uu horeeyay oo ka qaldamay oo aan hayno weeye taariikhda
ayadana kolle ayaga u taala sida ay maartay ummadooda ku qancin lahaayeen iyo shacabka say ku kasban lahaayeen ayaga u taala magaca mid ay leeyihiin ka hadlayn mahayo taas waxa weeye qalbi jabkii aniga aadanaha ku soo gaaray shaqo ku lahayn si gaarana aan shaqo ku lahayn aanu taagnahay mar waliba astaanta ummadda Soomaaliyeed ad adeeg aanu ka qaadno firfircooni aanu ka qaadno dadaal aanu ka qaadno طبعا xukuumadan ayada nagu tiri nala xisaabtama waa la xisaabtamaynaa hadalkii ay qaadaan afkii ay qaadaanba wuxuu ahaa hana la xisaabtamo xisaabtankii baanu marka ka rabnaa waxaanu ka doonaynaa marka u horeyso sababta ay ku dhacday arrinta ayada ah inay yiraahdaan waa qaldanay waa fududaanay waxa la yiraahdaa saasay wax naga noqdeen ayadaan wali ka rabnaa laakiin iska aamusto wax macno ay sameynayso ma jirto wax badan baa ka halaabay wax badanna way ka sii halaabi doonaan wali waxaan haddii ay lahayd inaan la ogaanaynin ninkaas dabcan ummadda Soomaaliyeed maanta meel kasta ay joogto telefoon bay wadataa social media meel walba ordayso tallaabo kasta oo la qaadaan xogteeda haynaa marka haddii la islahaa ninka intaan la ogaan dhaqsaba muran iyo balaayana ka dhacana hal isdhaafiyo fudeed xukuumaddu ay fududaatay bay ahayd waana ku dhaleecaynaynaa waana ku cambaaraynaynaa waxaanu leenahay shaqadii laydin igmaday meedan qaban baanu idin leenahay waanu idin sheegaynaa tan ayada ah laakiin idin dhihi mayna dhaqsaba hal rido oo dee waxaasay sameeyeen hal rido wanaag badanna waa sameynayeen waanu ku arkaynaa laakiin waxay noqonaysaa dalkuna waa dalka u turtaan ma jirto macna inoo sameynayso aad iyo aad baan idin salaamayaa waa maalin email waa taariikh gaaray عن رميسنا أمد Soomaaliyeedna sidaas oo kale oo dhacay laakiin aad iyo faa'iido weeye waana ka hadlaynaa waxaanu taaganaa shacabkeena iyo dadkeena inaan wanaag ku baraarujino u sheego waxa socda iyo wacyigelinta rasmiga ah la wadaagno taasaanu u sheegaynaa marka tani waa qalad dhacay cudurdaar u samayn mayno ma u samaynayno cudurdaar waa qalad dhacay xukuumadda ka dhacday ayadaa tiraahna la xisaabtama shacabka Soomaaliyeed idin soo gudbinaynaa la xisaabtama cidna ooga turi mayno ummadda Soomaaliyeed cidii qalad ka gasho u turi mayno cidii wanaag u garashane waa sheegaynaa ayagaba waxaan shalay ku taageeraynaa wanaagaanu ka aragnay bay ahayd maanta sababtaan u leenahay qaladkaas dhacayne dabcan waa idin la wadaagaynaa warka jira ee xaqiiqda ayaa taasa dad badan baa waxay leeyihiin warka la hubaa tahay mas'uul ka mid ah mas'uuliyiintii oo waliba markii la qaadahayay la wareejinahayay maxaa la yiraahdaa ka mid ah oo goobjoog ah baa soo wacay taasaan idin sheegaya aniga idin dhihi maayo waa shakhsi hebel laakiin arrintaas waa arrin cad weeye caawana jigjiga ayuu joogaa ma qandi ardaysoba in looga عبد محمد عمر وأنا لنا عبديو سيدي أذكره هروي شك كنا ويا وكا وأنا سومالي هدي هذا ماشي أودي وحكوا هايسو شعب إن كسبتنا أدونيسو إن كان إننا أود بضمبوها يعني iskasoo dhiibay oo loo dooda xukuumadda ku jirta
asagaa karo ilaahay ha badbaadiyo ilaahay ha badbaadiyo Soomaaliya sidaan dan kuguma jirto Soomaaliya sidaan dan kuguma jirto aad iyo aad baan uga tiraanyeesnahay aad iyo aad baan uga qalbi madoobahay aad baan idin salaamayaa sidaad u dhantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu mucaarad in la noqdo macno ma samaynayso taasaan mar waliba idin tusinaya in mucaarad la noqdo macno samayn mayso xukuumaddan wax badan wanaagsan qabtay ugu hiliya wixii wanaagga ay qabteen wixii sameeyeen sabtaan dabcan in la yiraahdo bariba mooshin ha loo yeero macno igula ma jirto imaanayso waxay qaban doonto ma naqaano hadii la yiraahdo tan aan saadaalinayno ka dambaysto tii ugu roonay waxaan leeyahay nimankaasta sida ku garbixi lahaayeen maamulka noo hayo oo madaxda noo laga sugahayaa laakiin anagu been ku taageeri mayno xaqdarro ugu sacabtumi mayno waxaan jirin ummadda Soomaaliyeed u sheegi mayno aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu guuliyo gobonnimaan Soomaaliya u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ha isku tashadeen gacanta ha isqabsadeen adadayga ka qaadeen tan waxay ahayd ficil aan loo baahnayn adadayga ka qaadeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu Soomaaliya ha israacdo guuliyo gobonnimaan rajaynayaa insha Allah aad iyo aadna waa u tacsiyeynayaa ururka maxaa la yiraahdaa xornimo Soomaali galbeed waa uga tacsiyeynayaa qof ahaan anoo ku hadlaya magacayga aadan Soomaali iyo anoo ku hadlaya kan ilmahayga iyo qoyskayga aragtideeda xorta aniga ku hadlaya waa ka tacsiyeynayaa waxaan leeyahay waa guuldar wadeexad idin ma qabato nama qabato Soomaaliya guuliyo gobonnimaan idin rajaynayaa ilaahay idinkiisna guusha dambeyn doonto assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aad baan idin salaamayaa sidaad u dhantihiin